السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو نكسن داوديا الهانتين باه ميل والبواد جوكتان كسود بادا وركا صومالي نيو 724 وضبضا كوداوان دونتانا waxaa kamid ah nolosha xisbiyada qaran oo faahfaahiyay kulankii ay la qaateen doonka labada aqal dowladda federaalka ee Soomaaliya oo xabsiga dhigtay ciidamo iyo saraakiil lacago baad ah qaadayay taliyaha cusub ee ciidanka Kenya oo booqasho ku yimid Soomaaliya kana hadlay dagaalka al-shabaab Puntland oo joojisay banaanbax lagu taageeri lahaa madaxweyne Farmaajo dowladda New Zealand oo ku dhawaaqday in ay ka guuleysatay xanuunka COVID-19 iyo booliska magaalada Minnesota oo la kala dirayo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa channelka New 724 ku daawan doontaan fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkani subscribe saar gambaleelka furo oo share garee asxaabtaadana la wada mar kale warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay madasha xisbiyada qaran oo faahfaahiyay kulankii ay la qaateen gudoonka labada aqal xalay waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo uu helinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud war-saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa maanta waxaa lagu faahfaahiyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ay uga hadleen oo ugu badnaa arrimaha siyaasadeed ee dalka iyo doorashada Soomaaliya gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tirsan hoggaanka sare ayaa kulamo wada tashi ah waxa ay axadii 7 Juun 2020 ay kala yeesheen labada gudoomiye ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal golaha shacabka iyo mudane Cabdi Xaashi aqalka sare hadafka kulamadani waxa uu ahaa in madaxweynayaashii hore ee dalka iyo hoggaanka golayaasha sharci dejinta dalka in ay iska wareystaan xaaladda guud ee uu marayo dalka xilligan si gaar ah waxa ay labada dhinac diiradda u saareen arrimaha la xiriira doorashooyinka la filayo dhawaan maadaama lagu jiro dhamaadka xilaynta hay'adaha dastuuriga ah ee federaalka dood iyo gorfeyn qoto dheer kadib waxa ay gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxda madasha xisbiyada qaran isla garteen ahmiyadda ay leedahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo howlaha muhiimka ah ee hor yaala ummadda Soomaaliyeed xilligan lana abuuro jawi degan oo si kalsooni ay ku dheehan tahayna loogu abaari karo waajibaadka dastuuriga ah ee la xiriira doorashooyinka federaalka waxa ay sidoo kale labada dhinac ay isla qaateen in la ballaariyo wada tashiga lana tixgeliyo baaqyada ka soo yeeraya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed si loo gaaro xal oo ku dhisan isqancin iyo wada ogol dhanka kalena dowladda oo xabsi dhigtay ciidamo iyo saraakiil lacag baad ah qaadayay afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed dhamme Sadiq Aadan Cali ayaa sheegay in booliska Soomaaliya ay ka jawaab celisay cabasho ka timid shacabka ku nool gobolka Banaadir kaas oo ay ka qabeen qaar ka mid ah ciidamada dowladda shir jiraa'id oo warbaahinta ugu qabtay Muqdisho ayuu afyeenka sheegay in baaris dheer ay ciidamada booliska Soomaaliyeed ay xabsiga dhigeen ciidamo ka howlgalayay mid ka mid ah baraha control ee magaalada Muqdisho kuwaas oo uu sheegay in ay dadku shacabka ah ay ka qaadayeen lacago laaluush ah ciidamada la xiray ayuu sheegay in ay talaabo ay laaluushka ku qaadayeen ay dhacday xilligii lagu guda jiray bandowga habeenkii ah ay dowladda Soomaaliya saartay magaalada Muqdisho walow dadka Muqdisho ay si iskood ah bandowga iskaga qaadeen ciidamada qaar ee dowladda ay ku sugan magaalada Muqdisho ayaa mararka qaar waxa ay lacago jidmar ah ay ka qaadaan gaadiidka iyo mootooyinka bajaajyada xilliyada ay socdaan howlgallada ama wadooyinka ay xiran yihiin taliyaha cusub ee ciidanka Kenya oo booqasho ku yimid Soomaaliya kana hadlay dagaalka al-shabaab taliyaha cusub ee ciidanka guud ee Kenya General Roberto Kibochi ayaa socdaal ku yimid deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose markii ugu horeysay tan iyo markii bishii hore xilkaasi loo magacaabay General Roberto Kibochi oo safarkiisii ahaa mid la qorsheeyay ayaa waxa uu kormeer ku tagay xeryaha ciidamada Kenya ee kamid ah AMISOM ay ku leeyihiin deegaanada kala ah Bilis Qoqani Hosingo iyo degmada Afmadow isagoo oo la kulmay saraakiisha ciidamada Kenya ee xeryahaasi ku sugan taliyaha Roberto Kibochi ayaa saraakiishan ciidamada kala hadlay dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ee ka socda deegaanada ka tirsan gobolka Jubbooyinka ee xuduudda la leh Kenya waxaana uu saraakiisha uu ku amray in ay dardar geliyaan howlgallada al-shabaab looga saarayo gobolada Jubbooyinka war ka soo baxay taliska ciidamada Kenya ayaa waxa lagu sheegayaa in booqashadani uu Soomaaliya ku yimid taliyaha ciidamada difaaca Kenya uu yahay
mid lagu dhiirigelinayo ciidamada Kenya ee ka jooga Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. General Robert Kiboja ayaa horey waxa uu uga howlgalayay deegaanada Jubaland sanadkii 2018 isaga oo xilligaasi ahaa taliyaha ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya. Waxa uu socdaal ku yimid Soomaaliya xilligan uu ku soo aadaya xilli wali ciidamada Kenya ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab. dhanka kalena Puntland oo joojisay banaanbaxyo lagu taageeri lahaa madaxweyne Farmaajo. magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa la filayaa in ay maanta ay ka dhaco dibadbax lagu taageerayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. hase yeeshee Puntland ayaa joojisay. wararka laga helay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay tageen halka uu ka socday isla markaana laga qaban qaabinayay banaanbaxani ay kala eriyeen dadkii ka dhigi lahaa banaanbaxani oo u badnaa habeen. saraakiisha ciidamada Puntland ee magaalada Boosaaso gaar ahaan kuwa gobolka Bari wali wax faahfaahin ah kama aysan bixinin sababaha ay ku joojiyeen banaanbaxaasi. hase yeeshee uu wali jiro khilaaf u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland. shalay ay ahayd markii magaalada Muqdisho uu ka dhacay banaanbax lagu taageerayo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana banaanbax kale uu maanta ka dhacaya degmada Doolow ee gobolka Gadow. dhanka kalena dowladda New Zealand oo ku dhawaaqday in ay ka guuleysatay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Ra'iisul Wasaaraha dalka New Zealand ee haweeneyda la yiraahdo Jacinda Ardern ayaa sheegtay in ay qaadayaan bandowgii saarnaa magaalooyinka dalkaasi kadib markii uu dalka ka dhamaaday xanuunka COVID-19. war ka soo baxaya xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Jacinda ayaa lagu sheegay in bandowga si guud ah loo qaadi doono isla markaana aan loo baahnayn in sharciga kala fogaanshaha bulshada hadda kadib. dadka dalka New Zealand waxaa loo fasaxay goobaha lagu kulmo ee inta badan lagu caweeyo. Ra'iisul Wasaaraha Jacinda Ardern waxa ay sheegtay in uusan jirin wax kiis coronavirus ah dalkeeda hadda ka jira. bandowgii cusla ee New Zealand waxaa la saaray dhamaadkii bishii Maarso ee sanadkani, inkastoo la qafiifiyay bartamihii bishii Abriil. qiyaastii 1500 oo xaaladood oo COVID-19 ah ayaa laga diiwaan geliyay dalka New Zealand, waxaana u geeriyootay 22 qofood tan iyo bishii Febraayo ee sanadkani oo dalka uu ka dilaacay cudurkaasi. ugu dambeyntiina booliska magaalada Minnesota oo la kala dirayo. inta badan xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa sheegay Axadii in ay taageerayaan kala dirista waaxda booliska magaalada. talaabadan oo imaanaysa iyadoo gobolka uu bilaabay baaritaan ku aadan haddii lagu xadgudbay xuquuqda madaniga ah ee kadib dilkii loo geystay George Floyd lagu geystay magaaladaasi 25kii bishii hore. 9 ka mid ah 12kii xubnood ee golaha deegaanka ee ka qayb galayay dibadbaxani ka dhacay magaalada ayaa wacad ku maray in aysan soo afjari doonin jiritaanka waaxda booliska ee Minneapolis. xubno ka tirsan golaha deegaanka Jeremiah Ellison ayaa ballan qaaday in golaha uu baabi'in doono waaxda booliska. waa arin cad in hanaankeena booliska uusan ilaalin ammaanka bulshadeena, ayay tiri Liz Petra oo ah madaxa golaha deegaanka Minneapolis. kooxaha u dhaqdhaqaaqa bulshada laga badan yahay ayaa in muddo ahba ku dhaleeceynayay waaxda booliska ee Minneapolis. waxa ay ugu yeereen dhaqan cunsurnimo ah isla markaana arxan lahayn, kaasoo looga hortaagnaa in la sameeyo dib u habayn. in la kala diro dhammaan waaxda booliska ayaa ah mid horey ugu dhacday Mareykanka. sanadkii 2012 ayaa magaalada Cape Town ee gobolka New Jersey waxaa kala dirtay waaxda booliska magaalada iyadoona lagu bedelay ciidamo cusub oo sugaya ammaanka magaalada. sidoo kale magaalada Cape Town ee gobolka CA ayaa talaabo caynkaasi ah sameeyay sanadkii 2000. guud ahaan daawadayaal warkii aad ka dhageysanayseen Somali News 724 wanaga inta fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkan soo booqatay hanaga hilmaamin inaad saarto subscribe, gambaleel furato, share gareyso, asxaabtaadana la wadaagto. nabadgelyo.